kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana daawanayo halkani waa telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waana dhakhtar oo maalin kasta oo talaada 5 galabnimo aad kala socotaan TV-ga Universal xarunta aynu ku leenahay magaalada Muqdisho barnaamijka waana dhakhtar waxaynu kaga hadalnaa caafimaadka guud qaybihiisa kala duwan waxaynu keenaa dhaqaatiirta aad u baahan tihiin oo markaas idin falanqeeya ama sidoo kale talooyin caafimaad idinka siiya waxyaabaha aad tabanaysaan iyo su'aalaha aad soo weydiisaan barnaamijka waana dhakhtar maanta waxaynu kaga hadlaynaa xanuunada ku dhaca dhimirka sida loo daryeelo dadka xanuunadaasi la nool iyo sidoo kale Soomaaliya sida ugu badan yahay xanuunkaas barnaamijka waxaa marti inoogu ah Dr. Cumar Xabeeb oo bartay cudurrada guud iyo sidoo kale qalliinka sidoo kalena waxa uu bartay xanuunada ku dhaca dhimirka waa uu ku shaqeeyaa ugu horreyn ku soo dhawow waana dhakhtar marka hore wanaagsantiin TV Universal iyo ayaan le si aad igu soo dhaweysiin barnaamijkan aan jaanis noo siisiin la hadalno ummadda Soomaaliyeed ugu faa'iideeyno xanuunadan dhimirka waa tahay bal waxaad warbixin naga siisaa marka ugu horeyso xanuunada ku dhaca dhimirka iyo noocyadiisa waa maasan tahay xanuunada dhimirka marka koowaad horta xanuunka dhimirka intooba asiiba xanuunka dhimirka wuxuu asiibaa maskaxda waaye sidaas darteed xanuunada dhimirka waxaa loo kala qaybiyaa da ahaan group ahaan ayaa la isku qayb ayaa la isku raaciyaa caruurta xanuuno ku dhaca jirto dadka waaweyn waayeelada haweenka markii la fiiriyo xanuunada dhimirka waxaa jiro cudur xaqiijin loo sameeyo markii la raacayo guideline ama cilmi lagu shaqeynayo cilmigaasi mid waxa waaye WHO guideline iyo American guideline inta badan waxaa la adeegsadaa kan oo American guideline ah DSM-5 last version ka la adeegsadaa markii la dhahayo xanuunka dhimirka waa maxay waa qofka garashada fahanka xasuusta iyo wacyiga qofka markii lumo ayaa la dhahaa xanuunada dhimirka markaas qofka ayuu asiibaa WHO markay qeexayso waa maxay badqabka caafimaad ee maskaxda waxay ku qeexdaa waa qofka markuu jir ahaan maskax ahaan diin ahaan iyo bulsho ahaan oo caafimaad qaba ayaa qofkaas waxaa la dhihi karaa qof caafimaad qaba markii la qeexayo caafimaadka bulshada ama qofka caafimaadkiisa sidaas darteed markii application apply markaan ku sameyno oo aan kala dhigdhigno waxaa noo soo baxayso xanuunada dhimirka mid aan soo qaadano kuwa caruurta ku dhaco hal caruurta waxaa ku dhaco attention deficient hyperactive autism ayaa ku dhaco neurodevelopmental delay aa ku dhaco waxaa arkaysaa dhammaantood in qofka korinshaha fahanka ay ku culus yihiin caruurta iyo luuqadaba taasi sidaas darteed maantana caruurteena autism ayay ka cabanayaan qaar kamid waxay ka cabanayaan neurodevelopmental delay fahankii iyo waxbarashadii ayaa ku adag waxaa arkaysaa in la abuse gareynayo oo kale sidaas la mid ah waayeeladii oo kale xanuun ku dhacaa jirto la dhahayo Alzheimer's disease ama dementia ayakana waxay u baahan yihiin oo xasuustii ka guurto ayakana waxay u baahan yihiin daryeel iyo nooc kamid ah fahankii waxaa kaloo soo jiro dadka qaangaarka ah xanuuno u badan yihiin depressionka oo shaqo la'aanta keenayso maaniyadii iyo schizophrenia markii qofkii psychosis oo muddo dheeraado oo kale markii aan isku soo wada duubno berigii hore waxaa la dhihi jiray xanuunka dhimirka waxaa loo kala qaybiyaa laba hab ayaa loo kala qaybiyaa mid fudud iyo mid culus oo ah psychosis iyo neurosis balse markii la arkay ilaa iyo 450 cudur ay cudur xaqiijin laga sameeyaa Soomaaliyana waxaa la dhahaa waa dalka ugu badan ku nool yihiin dadka qaba xanuunka dhimirka balse Soomaalida oo kaliya waxay u fahantay hal xanuun oo ah schizophrenia ama psychosis-ka cudurka waalida qof walba oo waxay u fahantay haddii ugu badan yahay xanuunka dhimirka in ay kaliya dhamaanteen wada waalanaa saddexdii qofood mid inuu naga waalay ma taas muhiimadda waa nooc kamid ah dhimirka waxaa kamid ah qofku wuxuu qabi karaa anxiety
qof hadduu maanta imaado kale markii ugu horeyso kale microfoonka inuu cabsado in badan waxaa naga ka maqan dad aan hor tegi karin oo kale phobia qabo kale qayb ka mid ah cudurrada dhimirka waa qayb kale cudurrada dhimirka waxaa ka mid ah caruurta inay isku kaadiyaan oo kale habeenkii oo kale waxaa kaloo qayb kaloo cudurrada dhimirka ka mid ah post traumatic stress qof in meel lagu dhacay oo kale ama lagu dhibaateeyo oo kale wadadaas oo dhan waa ka guuraa waxaa kaloo ka mid ah qofkii habeenkii inuu soo qarwo kale arrimahaas oo kale post traumatic stress oo kale flashback oo kale qofkii ku nooc oo kale waxaa kaloo gurubyadaan u sameyn karno xanuunada dhimirka waxaa kaloo ka mid ah fatigue disorder qof inuu bajaaj raaca ama gaari kale ama wax kale meeshii rabay oosan ka gudbo kadib oo soo xasuusta oo soo laaba waxaasoo dhan waxaa nagu hareersanay noo keenayana nolosha aan ku noolnahay iyo dhibaatooyinka aan ku noolnahay qofka uu xalinayo waxaa kaloo jiro stress waa maxay stress waxaa normal life qofka inuu xaliyo problem maanta inaad soo gaartid TV-gan qabada fara badan ayaa ka soo gudubtay haddii aad arrimahaasi aan xali weyso haddii isku bedelaan depressionkii oo kale qalbi jabkii wax lamid ah ama wax badan waxaa kaloo ka mid ah xanuunada dhimirka dadka isticmaalayo drug abuse oo ah sida drug abuse waxaa la lahaa dadka maandooriyaasha isticmaalaya sida qaadka sida tramadolka sida kokayiinka xashiishka dhammaantood waxay wax bedelayaan qofka aqligiisa fikirkiisa garashadiisa iyo xitaa waxaa lagu soo daraa sida qamaarka waxaa kaloo lagu soo daraa xanuunada dhimirka laga diagnose gareeya laga xaqiijiyaa social media addiction dad badan ee social media addiction ku noqda laga qabatimay dhammaantood waxay la mid yihiin in la xaliyo cudur xaqiijin loo sameeyo waxaan kusoo wada koobi lahayn labaad aan leenahay yaana dhihin qofkan cudur dhimiradoo qabaa yaana dhihin uu waalan yahay waxaan dhihi karnaa hurdalaana habeenkii ku dhacday oo kale waxaan kaloo dhihi karnaa post traumatic stress ay ahaayo waxaan kaloo dhihi karnaa learning disorder ahaayo qofkan wax ma baran karo kale imise qofood ayaa jiro oo caalamka oo milyaneer ah oo aan wax qori karin waxna akhri karin balse gaareen heerkaasi laakiin cudurkan xaqiijinayo leeyahay mujtamac ku dhiirigelinaya inay wax qabsan karaan oo kale arinta social media soo hadal qaado waxaad arkaysaa dad badan oo social media aad ugu mashquulsan mar ku soo noqnoqdo bal dadkaas ka waran dhibaatada ay kala kulmi karaan kale waa maasan tahay waxaan aragnaa social mediaha waxaan u kala saarayn laba hab mid waxaa waaye in qofkii 24 saac uu ku jiro macnaha qofka waxaa la lahaa caafimaadka maskaxda markii la qeexayo qofku inuu qofka ku soo kordhiyo mujtamaca productive life waa fantameen haddii maanta wariyaad tahay mujtamac waxaa usoo gudbinaysaa barnaamijka waana dhaqtar barnaamijyo kale warar kale haddii aad xaalado ku haysto walwal ku haysto haddii aad nolosha ugu dhex baxdid oo aad u tagdid mujtamac xali weyso mujtamacii kale hadda waxay u muuqataa wax badan oo mujtamacii familkii wax badan mujtamacii security xalinaysid darteed inaad ku fadhisid laakiin haddaas dhibaato haddii kugu hayso ma xali kartid sidaas lamid ah mujtamacina waxaa u tahay wax soo saaray barnaamijkan tayada leh iyo barnaamij qurux badan ayaa soo saaraysaa sidaas lamid ah mujtamac waxaa loogu talagalay inuu wax u soo faa'iideeyo qofka kale walaalkiis laakiin 24 saac mujtamaca haddii uu Facebook ku jiro nolol kale cibaadaysaneen qayb ka mid ah xanuunada dhimirka waay mujtamacna waa lagala taliyaa waxaa kaloo jiro qamaarka gambalinka addiction ay leeyahay macna qabatin heer waxaa gaar arkaysaa qof inuu qabatin oo noloshiis gabartiisa ama xaaskiisa u dhigtay lagu kala badiyay ama gurigiisa u dhigtay heer la soo dhaafay dhammaantood waa xanuuno dhimir ah mujtamaceena ma wada fahansana waxaa kaloo ka mid ah qof stress ay ahaayo oo indho beelay oo dhaga beelay confession disorder lahaa muddo kadib wixii markii la xaliyo la daweebo lala taliyo aragiisa qofkaas oo soo laabanaya qayb ka mid xanuunada dhimirka waa balse ratiinada aragga ama maqalka neerfaha siday dhammaantood ay caafimaad qabaan markii uu xaqiijiyo dhakhtarka balse dhammaantood normal life waay waxaa kaloo ka mid ah gabar ayaa la cadaadinayaa shaqada guriga kaligeed waaye ilmihii kale ma caawinayaan
mar walba way dhacaysaa dhulka ayay ku dhacaysaa qayb ka mid ah cudurrada dhimirka waaye maseerka arkaysid delusion disorder qayb ka mid ah cudurrada dhimirka waaye dhammaanteen waxaa u wada raadsanaynaa meelo kale waxaa arkaysaa maanta qof inuu dhakhtar u tago biri hal bil gudaheed inuu u tago 5 dhakhtar oo kala duwan qofkaasina haddii la raadiyo problemkiisa waa qayb ka mid wuxuu qabaa xanuun dhimireed haddii la xaqiijiyo sababtoo ah waxaa haysta problem dhakhtarkaani ma weydiinayo xanuunka haysta problem maxaa u keenay waxaas kale laakiin wuxuu daaweynaya beenkii xanuunkeed balse maxaa keenay maxaa sababa lama dhahayo muxuu ahaa waxaa kaloo jiro stress induced peptic ulcer oo ah dadka walwalka walbahaarka la nool waxay qaadaan bogcaloleed ayay qaadaan taas waxaan dareemaysaa nolosheena inaa maskaxda ay qayb ka tahay waxaa kaloo ka mid ah dadka xasuusta waxaa kaloo ka mid ah dadka xasuusta la-aad oo kale laba hab ay xasuusta qofka u wey karaa oo kale mid inay jug soo gaarto ama macdantii iyo mineraalka ama fitamiinka inay ku yarto oo qofkaas cunin oo kale qofkii xasuusta haddii ka dhumanto wuxuu galayaa qayb ka mid ah xanuunka dhimirka ayuu galayaa mujtamacina waxay u baahan tahay barnaamijyadan kale in loo sii dhiirigeliyo hagaag daawadayaal waxaad si toosan ugala socotaan telefishinka universal stuudiyaha magaalada muqdisho barnaamijka waana dhakhtar ayaad daawanaysaan barnaamijka waxaynu maanta kaga hadlaynaa xanuunada ku dhaca dhimirka sida loo daryeelo su-aalihina aynu ku guda jirnaa sidee marka lagu garan karaa qofkan inuu ka xanuunsan yahay dhanka dhimirka waa maasan tahay qofkan waxaa lagu garan karaa inuu dhimirka ka xanuunsan yahay mujtamaceena way ku dhex arkaan laakiin xarun dhimireed uma arkaan waxaa ka mid ah qofkan waa le sixro ku leeyahay anaa la raadsanaya ku leeyahay cadowaa leeyahay ku leeyahay wuxuu ku leeyahay madaxweynaha waddankana ah wuxuu ku leeyahay xitaa ambiyada qaar inuu isku sheego kale dhammaan wuxuu kaloo leeyahay hanti fara badan aan leeyahay oosan lahayn oo kale wuxuu kaloo leeyahay qofkani in nafsadiisii oo ku sameeyo harmful inuu dhibaateeyo kale waxaa kaloo ka mid ah in oo qamaarkii dheelo waxaa kaloo ka mid ah xanuunada dhimirka in noloshii sariirta qayb ka mid ah xanuunada dhimirka ay ka mid tahay ninka inuu xaaskiisidii wanaagsan uusan isku fahmin oo kale dhammaan xanuunada dhimirka waxaa lagu fahmaa markuu halaabo hadalka garashada fahanka xasuusta dhammaan intaas iyo isku xirka dhammaantood ayaa waxaa qofkaasi intaas ayaa ka halaabayso intaasina waxaan maamulo maskaxda bini'aadanka ayaa maamusho tusaale ahaan hadalka oo kale caruurta autismka qabo oo kale hadal wanaagsan kuma hadli karaan ma awoodaan eye contact si wanaagsan kuma fiiri karaan oo kale behavior waxay leeyihiin oo mar walba soo laalaabaan hal ciyaar inay ciyaaraan oo kale waxay kaloo ka mid ah dadka oo schizophrenia qabo oo waalida dadku lagu tilmaamo oo dhahayaan codad ayaa maqalnaa waxay leeyihiin wax baa urinaynaa doctor hallucination visual hallucination ay leenahay waxay kaloo leeyihiin tactile hallucination dadka daroogooyinka qaata sida horooyinka oo budada ah oo sanka ka isticmaalo oo kale sneezing oo kale waxay arkaysaa inay leeyihiin tactile hallucination inay cunayso meelaha oo kale waxaa arkaysaa bukaan intaasoo qofood intaasoo dhakhtar loo geeyay dhahaya inta bahda caloosha igu jiro lugta igu jiro waxbaa igu soo socdo xeer markii dambe oo dhakhaatiirtii fahmi weysay in la mid isgeliyo isdooxay oo kale waan aragnay alxamdulilah hadda wabad qaba waxaan kusoo koobin karnaa xanuunada dhimirka waa inta iyo tacaamulka mujtamaca qofka markii uu lumiyo iyo fahanka uu la leeyahay intaas ayaa xanuunada dhimirka ayaa lagu fahmaa lagu gartaane daryeelka u baahan yahay marka qofkaas waa daryeel noocee ah waa maasan tahay daryeelka ugu horeeya waxaa laga rabaa talada dowladda ama nidaamka meeshaasi ka jiro ayaa looga baahan yahay marka koowaad waxaa waaye mujtamaci ayuu qofkan dhib ku hayaa marka koowaad dhibkii suuqii ayuu dhibaateynaa tuuriyeynaa
waa in xilligaasi daryeelka ugu horeeya waxaa waa in booliisku soo qabto la keena goob caafimaad kadib waxayna u baahan tahay in mujtamacii iyo dadkii kaleba ay santuuriyeen intii laga helayo nidaam ama xukuumad meeshaasi ka jirtay soo qabanaysa dadkaas xanuunsanaa ay geynaysay goobihii loogu talagalo kale si mujtamacii aysan u dhibaateynin waxaa kaloo ugu horeeyo wanaagsan in mujtamacii daryeelka ugu horeeyo in mujtamacii hadal wanaagsan kula hadlaan aysan garaacin aysan tuuriyeenin caruurta laga celiyaa qofkan dhimirka la waxaa laleeyahay jiniya saana waa la tuuriyeynaa waxaa laleeyahay waraaba ayaa qolka loogu xiraya beri hore wixii jiri jiroo kale waxaa kaloo jiri jiray waxaa kaloo dhacdaba in la geeyo meelaha qur-aan saarka ah diinteena islaamka qur-aanka waa daawo in la saaro waayo balse qof in la garaaco ilaa oo ka dhibaatoodo xoogaa meeshaasi waxay keenaysaa in xuquuqda aadanaha lagu xadgudbo meelo fara badan oo dalalka deriska lana la xiranay ay lasoo bandhigay BBC dana waa arkaynay daryeelka ugu horeeya waxaa waaye in markii intaas laga soo gudbo markii labaad markii isbitaalka la keena in uu qaato daawadiisa saxda ah oo qofkii lala hadlo lala fadhiisto lala sheekeeyo qofka burakaanka ee dhimirka la ma ahan inuusan hadli karin la wareysan karin wuxuu lamid yahay qofka caadiga ah oo la weydiiyaa maanta maxaa inta u imaatay magacaa si loo muujiyo kalsooni balse inaan la jajuubin waxa lamid ah waxaa kaloo kamid ah dadka qaar xanuunada daryeelka waxaa kamid ah dadka qaar waxay ku daaweysmaan hadal oo keliya iyo talo dadka qaar waxay ku daaweysmaan daawo la siiyo qofka xanuunsan mid ah sidaas lamid ah dadka qaar daawada waxay qaataan intii noloshooda ka dhiman ayay qaataan dadka qaarna waxay qaataan 6 bilood sanad intuu dhakhtarku u qoray ay ku xiran tahay iyo xaaladiisa ay ku xiran tahay waxay kaloo daryeelkooda wanaagsan in shaqo abuur loo sameeyo rehabilitation loo sameeyo in la baro xirfad koronto harqaan taasi maxay keenaysaa in mujtamaci xirfad kula laabto qofkan muddo dheer uusan xirfad ama uusan shaqaysanin oo kale taasi waxay keenaysaa inuu xirfad hadoo loo sameeyo mujtamaci qof wax ku soo kordhiyay ayuu qofkan noqonayaa kadibna xaruntii markuu ka baxo kadibna oo dhakhtarkii ku xirnaado oo follow up loo sameeyo oo ku xirnaansho midda kale ugu muhiimsan waxa waaye in uu qofkaasi ehelkii iyo asagaba oo qaadka iyo muqaadaraadka ay ka fogaadaan qofna lagulama tali karo guurso qofka kale waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisii iyo sidiisaba wata mar waxaad arkaysaa dad isla hadlaayo oo isla sheekaysanay qaarkood waxay leeyihiin waxay dhibay iyo bal dadkaas ka waran oo maasantaha qofkaas waxaa laga helay hal cudur hal calaamad dhimireed laakiin aan lagu geey karin isbitaal laakiin haddii uu kusoo darsado delusion wax hadduu yahay qofkaas oo isla sheekaysana laakiin markuu caadi yahay mujtamac ku dhex jiro waa qof caadi dadka la macaamilayo laakiin keligiis markuu gooni fadhiisto maanta dhan dagaal uu ku jiraa yes dadkaas waxaa la dhihi karaa la dhahaa delusion disorder ay qabaan waxay rumaysan yihiin dadkaas waxay qabaan hallucination oo kale sababtoo ah qofkan waxay arkayaan waxaysan dadka kale arkaynin waxay maqlayaan dadka kale waxaysan maqlaynin qofkaasi waa inaysan mujtamaci aysan challenge ama aysan dagaal ama dhihin maxaa la sheekaysanaysaa u dhimiriyaan fahmaan qofkan inuu la sheekaysanayo qof dad maskaxdooda ama neurotransmitterka waxaa jiro maskaxdeena fariimaha waxay iskugu gudbisaa waxa la dhahayo neurotransmitter walxo fariimaha iskugu gudbiya oo kale acetylcholine oo kale dopamine oo kale serotonin oo kale waxyaalahaas maadooyinkaas kamid ah sida dopamine oo kale haday badato oo kale qofka waxa ku dhacay calaamadaha hadda sheegayso kale haddii serotonin ka yaraado kale qofka waxa ku dhacaysa depression oo kale qofkaasi oo kale wuxuu qabaa waxa arkayo waa calaamad haddii uu ku darsado qaadkii haddii uu ku darsado hurdo la'aantii haddii uu ku darsado dagaalkii dadkii inuu garaaco kale qofkaas wuxuu loo baahan in isbitaal la seexiyo kale waxaan leenahay
qayb hal calaamad qofna laguma diagnose garay karo laakiin wuxuu qabaa calaamad ayuu qabaa wuxuu u baahan yahay in dhakhtar dhow la xiriiro oo kala tashto arrintaas si aysan ugu sii fogaanin qof ay la macaamilaya qofkaas maxaa lagu tilmaami karaa inuu xanuun dhimireed qabo ayaa lagu tilmaami karaa tahay barnaamijka waana dhakhtareed la socotaan qaybihii dambe ayaynu kusii dhawaaneynaa su-aalaheena ayaynu gudagalaynaa Soomaaliya markaan fiirino iyo dunida inteeda kale maxaa farqiga u dhexeeya markii daryeelkooda la yiraahdo dadka dhimirka xanuunsanaya waxaa la dhihi karaa Soomaaliya markii la fiiriyo dunida inteeda kale markii isbitaalka loo eego anaka ugu horeyno sababtoo ah dad badan waxaan aragnay oo dibadaha laga keenay oo ku caafimaaday isbitaalaadka magaalada Muqdisho halka dadka dibadaha ku jooga markii ay weydiisad maxay ku leeyihiin waxay mar walba rabaan inaad ku jirtid cycle-ka oo xanuunka ah dhaqaatiirtaasi balse waxay u baahan tahay sheegashadooda ama arrintaasi baaritaan ay u baahan tahay balse waxay u baahan tahay baaritaan ay u baahan tahay laakiin daryeelka caafimaadka Soomaaliya xanuunada dhimirka aad ayuu u liitaa markii loo eego wadamada kale sababtoo ah Soomaaliya waa wadan ka soo koraya dagaalada faqriga waxyaalahaas lamid ah ma haysano dhaqaatiir ugu filan dhinac waliba sidaas lamid ahna markii la dhahaayna waxaan ahnay 10 milyan oo qofood ama 15 milyan oo qofood oo Soomaaliya bal qiyaas meeqa dhakhtar ayaa nagu soo aadi doon karto dhaqaatiirteena ma dhamo 1 milyan oo qof ma dhamo ama 500 kun oo qof ma dhamo xataa taas waxay ku tusaysaa in gaab fara badan oo jiro oo daryeelo waxa kale jiro oo wanaagsanba in lagu soo daro caafimaadka asaasiga xanuunada dhimirka si looga tacaalo xanuunka markii ugu horeyso la arkayo MCH ugu hore in lagu dabiibo waxa kale daryeelka qofka ka saacidayo xumeyn kalane meelaha dhaqan celinta mujtamaci waxay geenayaan qofkan balwad ayuu bartay wiilkii markii uu bartay eelkii waxay leeyihiin qofka ma xanuunsan isbitaal uma baahno waxay ku tuurayaan meelaha dhaqan celinta kadibna wiilkii waa la soo abuse gareynaa kadib waxaa arkaysaa in lagu soo la keenaba meelaha isbitaalka kadibna waxaa arkaysaa inuu improvement soo sameeyo qofkaasi soo wanaagsanaado wax badanna meeshaasi waxaa dareemaysaa in ay gaab naga haysato balse waxaan gaari doonaa in xal laga gaari doonaba wata gabagabadii maxaad ku talin lahayd Umar waxaan ku talin lahaa in laga wada shaqeeyo caafimaadka maskaxda jir ahaan iyo maskax ahaanba caafimaadka dhimirka wuxuu ku wada xiran yahay labadaas qof labadaas caafimaadka jirka iyo caafimaadka maskaxda qofka haddii uu sokor qabo kale haddii uu diabetic qabo kale waxaa soo wajahaya xanuunada dhimirka qayb ka mid ah qofka haddii uu qabo xanuunada hepatitis-ka HIV oo kale waxaa arkaysaa in qayb ka mid ah xanuunada dhimirka uu qaadi karo kale xanuun jir qab ama xanuun dhimir qab waxaa loo wada baahan yahay in loo wada istaago loo campaign gareeyo mujtamac la baro sida maanta oo kale xanuunada dhimirkana hal barnaamij oo kale lagu soo koobi karo oo waxaan ku talin lahaa dadka inay sameeyaan jirdhis caafimaadkooda jirka ahaan iyo maskaxda ay ka taliyaan waxaan kula talin lahaa in dadka ay shaqo abuur sameeyaan samaystaan aysan sugin qof kale waxaan kaloo dadka kula talin lahaa in caafimaadka bulshada in ay ka qayb qaataan oo kale caafimaadka bulshada waxaa dad islaam ayaa nahnay waxaa arkaysaa inaan wada jirinna waxaa dareemaysaa in diintan islaamku waxay nafaraysaa nadaafadda magaalada waa aragtaa nadaafad inaysan ka jirin dhammaanteen inaan wada jiranaan qofna wax uusan qaban karin oo aan ka sugayn qof kale taladiisa in oo qashinkaas naga qaado macnaha waxay ku tusaysaa mujtamaceeni oo dhan inaan wada xanuunsanaanay haddii aan wada xanuunsanaan lahayn dhinac waliba hawsha ayaan dhinac ka geli lahayn oo kale caawintana ka geli lahayn oo nagu aadano mujtamaceena dhexdiisaba waxaan kula kusoo gabagay lahaa waa ku mahadsantihiin sida barnaamijkan jaaniskan nagu siiseen ayaanla iyo TV Universal
waad ku mahadsantihiin mar kaleba. aad buu mahadsan yahay. guud ahaan daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii waana dhakhtarood kala socoteen telefishinka Universal stuudiyaha magaalada Muqdisho. barnaamijka maanta waxaynu kaga hadlaynay xanuunada ku dhaca dhimirka iyo sida loo daryeelo dadka ka xanuunsanaya maskaxda. waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa Dr. Cumar Xabeeb oo bartay cudurrada guud iyo sidoo kale qaleenka, sidoo kalena waxa uu bartay xanuunada ku dhaca dhimirka. barnaamijka waxaan u mahad celinayaa saaxiibada dhinaca farsamada ee kaamilada gacanta weyn ka geystay kala Cabdiraxmaan Aarka iyo Maamow. intaynu ku kulmi doona barnaamijka kan xiga Maxamed Cabdinaasir ayaan loo idin leh nabadgalo dhamaantiin.